السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر دواء القلم جارة وين كويل نحيص كده احتاجن وضمد إثيوبيا يا مصر حيص دني وصلك كويسة مرنكا بيها وبيجا النيل إسلام مركزنا متسوي كسر بلود بيحرين كوين أباي إثيوبيا كبنا يصي قرك وبيجا النيل وبيجا النيل مد سقو مرة وضم فرق بدن أي مصاريد دون إسائين أي مر والبا لوه جان سمو أما وضمضة لمان ومرايو تحجلية إن هشيس سقو دعاي يكون سقال بقول يلا باطن يسقال كي إسلام مركزنا ودحيي بقرطوية إنجليز كا iyo madaxweynihii waqtigaasi talada dalka Masar hayay Maxamed Ali Baasha la oran jiray heshiiskan ayaa dhigaya inay mitirkuyuga iyo biyaha ugu badan ay isticmaasho masaaridu isla markaasina doorka ugu muhiim ka qaato maamulidda biyaha haddana waxa dhacday sanadkii 1959 waxa dib loo cusboonaysiiyay heshiiska oo markaasi ay ku soo darsameen wadamo badan oo iyagu markaasi aan xor ahayn markaasi laakiin markii dambe iyagu gadaal ka soo biiray oo Kenya, Uganda, Suudaan iyo waddanka la yiraahdo Burundi ay ka mid yihiin 2015 waxa dhacay heshiis kale oo dhex maray saddexda waddan ee Suudaan, Itoobiya iyo Masar haddaba shacabka Masaarida ayaa la sheegay in ay ku xidhan tahay noloshoodu biyaha webiga Niil oo laf dhabarta ay ku tiirsan shacabka Masaaridu halkaasi oo boqolkiiba 94 shacabka Masar ay qowtalyoomkooda kala soo baxaan biyaha Niil Masar ayaa bariyahan buu xusul duubaysay inay ku muquuniso dagaal dhanka diblomaasiyadda dhigeeda Itoobiya taasi oo wufuud iyo waraaqo diblomaasiyad u kala dirtay wadamo kamid ah jaamacadda Carabta oo kamid yihiin Tunisia, Morocco, Mauritania, Bahrain, Qatar, Soomaaliya, Djibouti iyo qaar kale haddaba Masar ayaa ku doodaysay in la tixgeliyay heshiiskii 1929 isla markaasina awood badan iyada siinayay kuwan wadamadan kalena ka dhigayay wax markaa iyagu aan lahayn awood la siman awoodda Masaarida Masar ayaa in badan isku dayday in Itoobiya ka dhacdhiciso inay qadarisay heshiiska la yiraahdo 1929 oo markaasi uu qalinka ku duway Maxamed Ali Baasha iyo boqortooyada Ingiriiska laakiin Itoobiya ayaa taasi ka cagajiiday isla markaasina aan doonaynin inay hoggaansato heshiiska taasoo ku sheegtay in heshiiskani gabi ahaanba meesha ka saaray xuquuqdii ay ku lahayd webiga Niil wadahadaladii ugu dambeeyay saddex geesoodka oo ka dhacay magaalada Khartoum ee xarunta Suudaan ayaa burburay taasina waxay meesha keentay inay ka huleelaan wufuudihii kala duwanaa ee Masar iyo Itoobiya oo ay u xalka xidhaan xagga iyo wadamadoodii iyaga oo kala tigay shirkaasi natiijo la'aan guddiga heerka qaran ee uu magacaabay ra'iisul wasaare Axmed Abiy ayaa soo gaaray caasimadda Addis Ababa iyagoo markaasina sheegay inaanay jirin wax haba yaraatee ka soo baxay halkaasi oo la taaban karo haddaba waddanka ay tahay inay taageerto waxa aan wax ka weydiinay aqoon-yahan Cabdulwahaab Cabdisamed oo isagu markaasi degan dalka Kenya isaga ayaynu weydiinaynaa su'aashaasi oo waddanka ay tahay Soomaaliya inay taageerto maadaama ay hore u sheegtay inay tahay dhexdhexaad Cabdulwahaab oo ku sugan magaalada madaxda Kenya ee Nairobi waxa la leeyahay ka mid ahaa sida tan Soomaaliya dhexdhexaad ka noqon kartaa wax dhibaato ma inay mowqif dhexdhexaad qaadato oo kala heelin laakiin waxa ma oran lahaa Itoobiya taageerto maxaa yeelay Itoobiya waxay ku taageeraysaa laba arrimood weeyaan mid waxa weeyaan dad Soomaali ah oo 10 milyan gaaraya oo Itoobiya ku nool mashruucan ka faa'iideysanaya mid labaad waxa weeyaan boqolkiiba 60 dadka ku nool waddanka Itoobiya kuna muslimiin waaye marka islaam ka fil badan ma jira